واتاي واحد داونيسان بندقة بوقتا بنتلان أو سنتكي أفراد كقبسمية مقالة قروة سنة كان waxaa aad loogu maamusay xoojinta nabadda waxaa geeskayga taagan wasiirka warfaafinta Puntland mudane Caydiid soo dhawow maxay kaaga dhigan tahay caawa in Puntland oo nabad ka dhacayo bandhigani ما شاء الله الحمد لله رب العالمين لئن شكرتم لأزيدنكم بإلهي سبحانه وتعالى nimcay Puntland haysataa ammaan bay haysataa daldegan bay haysataa dawladnimo ay haysataa dadka Soomaaliyeed oo maartay shanta Soomaaliyeed ka kala yimi qurbaha ka kala yimi Yurub iyo maartay Afrika iyo Asia intaba ka yimi oo u soo aaday inay ka qayb galaan bandhiga buugaagtan oo buugtii ay qoreen keeneen ama doodaha ka socda ay ka qayb galaan runtii waxay cadeynaysaa in dhul ammaana oo maartay ay Puntland tahay waxay ka dhigan tahay maartay dadka reer Puntland inay ku faanaan inay ku dadaalaan inay si adkaystaan ammaanka ay haystaan waxay ka dhigan tahay tusaale inay u noqdaan dadka Soomaaliyeed in la isku tashan karo ammaanka in la isku tashan karo argagixisada in la iska celin karo in sayska dawliga la dhisan karo iyadoo la isku tashay dawladeed la sameyn karo waxay ka dhigan tahay maartay horumar iyo barwaaqo ay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay inay dadka reer Puntland maartay tusaale ugu noqdaan dawlad dhiska dadka Soomaaliyeed way ka dhigan tahay watahay maxaad u sheegaysaa dadweynaha Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa maartay in dawladiska loo soo jeesto in aragtida siyaasadeed oo kala duwanaanshaha aan la isku colaadin in si cilmiyana loo kala dhageysto Puntland maxay Soomaali ka rabtaa dawladnimada ay rabtaa waa noocee 2024 dadka Soomaaliyeed dawladiskii koowaad 2012kii waxa lagu heshiiyay dastuurku meel gaara inuu dalku federaal yahay dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dastuurkii federalismka oo aynu ku heshiinay oo dawladiska aynu isla qaadanay ahaa oo aan fulin in loo baahan yahay in loo soo noqdo dawlado badan baa dunida nidaamka federaalka ku dhaqma oo horumaray waxa kamid ah dalka Australia kamid ah dalka Switzerland baa kamid oo dalalka dunida ugu qanisan ugu ammaansana waxa kamid ah oo waliba يعني aan madaxweyne xukumin yani waxay isku xukumaan sida shuurada oo kale ay isku xukumaan shir gudoon bay samaystaan muxuu ahaay sanadba qolo ay deegaan xukumo maartay aan qof kaliya xukumin dalkaas oo dhan Germany baa kamida Mareykanka kamida yani waxa weeyaan nidaamka federalismku ma aha mid cid ka qaadaya xuquuqdiisa laakiin wuxuu qaybiyaa xuquuqda wuxuu qaybiyaa isu dheelitiraa awooduhu isu dheelitiraa من عاصمتي إلا إيو تولدي دولة هوسة هاي دولة ستيت أما دولة قبلات دولة دحى وحقيبنا يا أودها ثلاثة إيو تذكر كقيب قلنا يا مثلا تسورك وحقوقنا قرية إن دولتها حبنتك دولة فدرالك يا دولة فدرالك أرين مسيري مركي تماطع كوضة الشران لكن رئيس الوزراء يا مدحونها فدرالك حق قارة إن أنا إلهين إن يكتلين كران إن يسنجيستان أو شرعي الله صار نقضه dadka Soomaaliyeed waxaan farayaa oo aan leeyahay yaani hal ugu baraarugno dawladnimada waxay tahay qabyaalada hal iska daayo qof dan leh oo aanu adeegayn dadka Soomaaliyeed dantoodii inay qabiil ku taageeraan ha ka baxeen ha garteen dantooda dawladiska ha u soo jeed iyo la noolaanshaha iyo la jaanqaadida caalamku sida uu u nool yahay ha ula noolaadeen su'aal baaqagaas daba socota mudane wasiir hadallo badan oo xanaf leh baa ka dhacay wasiir Caydiid caawir halgelin bixinaya laba faham siyaasadeed oo qaldan baa jira markaan qof siyaasi la hadlayo macnaheedu ma aha inaan qabiil la hadlayo ma aha inaan gobol la hadlayo ma aha xalay ma habeen hore waxaan joognay Gaalkacyo hotel baan furaynay reer Galmudug iyo reer Gaalkacyo Puntland labaduba waa ka qayb galayaan xafladaha qolada reer Galmudug baa khudbadaha iga horeysay Caydiid oo caawa waxba oo dhan baa la igu lahaa waxaan ka xumahay markaan anu ka hadlayo siyaasadda oo aan madaxweyne la hadlayo ama ra'iisul wasaare la hadlayo waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed baan ahay xaqii aan lahaa dawladnimada lahaa baan sheeganayaa waxaan ahay mas'uul Puntland oo dadka reer Puntland kitaab gacanta u saaray inay xaqooda helaan oo aan dawladnimo uga shaqeeyo markaan la hadlayo qof siyaasi ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama muxuu ahay wasiir federaalka yani waxaan ka hadlayaa arrin dastuuriya waan ka hadlayaa oo ah awood qaybsigu dadka Soomaaliyeed buu ka dhaxeeyaa madaxweynuhu xaq uma laha inuu u go'aamiyo ra'iisul wasaaruhu xaq uma laha inuu u go'aamiyo laakiin sharciga u qoran oo lagu heshiiyay inuu ku hago oo wax ugu qaybiyo way leedahay marka wax raaligelin ka bixin maayo waxaan leeyahay ha u soo noqdeen wadada saxda ah
madaxda ambatay ee ka ambatay dastuurkii dalkan ay kitaabka gacanta u saareen mar in ka badan hal mar ka badan ay gacanta saareen ha u soo noqdeen ma lehe aad u mahadsan tahay waa kuwa buugga ugu xiisaha badan ee caawa wasiir caydiid oo akhrisan doona halkan ka qaadan doono aad baad u mahadsan tahay waxa weeyaan waxa ugu xiiso badnayd yani casharka laga bartay dagaalka caalamiskaad yani tabaha cusub ee dagaalka ee ciidanka reer Puntland soo kordhiyeen go'aamada siyaasadeed ee qaraar ee madaxweynaha dowladda Puntland uu soo kordhiyey oo dowladiska Soomaaliyeed hadii tusaale looga qaato 10 u noqon kara aad u mahadsan adaa mudanaad